sida aad horeyba u taabateen shirkii labaad waaye ee noociisa kala ee ka dhacay magaalada Muqdisho kii ugu horeeyay aan qabanay wuxuu ka dhacay magaalada Baydhabo ee kasoo qayb galeen dhammaan wasaaradaha arrimaha dastuurka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ujeedkuna sida hore loo sheegayba ayaa wuxuu ahaa in la xoojiyo wada shaqeynta hay'adaha maadaama aan ognahay in maxaa la yiraahdaa hay'ad kasta tiirka isku haya ama udubdhaxaad ku ah inuu yahay agaasimayaasha guud muhiimadaas ayuu marka horeba ku dhisnaa inaan aasaasno forumkan waagii hore waxaa jiray madal loo yaqaan madasha wasiirada arrimaha dastuurka ee federaalka iyo dowlad goboleed ayaa jiray marka waxaan u aragnay inuu yahay level ama heer mataqaanaa siyaasad ah heerkaas siyaasaduna oo wax loo baahan yahay aad iyo aad muhiim u ah laakiin waxaa isweydiin mudnaantay markii dambe arrimaha siyaasadda waa arrin maxaa la yiraahdaa mar walba joogta ay jira laakiin dadka xilalka siyaasadda haya ma aha dadka joogtada ah ee ku howlan gaar ahaan arrimaha maxaa la yiraahdaa maamulka wasaaradda iyo maareynteedii shaqo kuma laha oo iyagu joogto ma aha marka siyaasiyiintu sidaad ogtihiin dhaqanka siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan ka baranay dadka siyaasadda loo magacaabo jagooyin siyaasiga ah way yimaadaan way baxaan laakiin inta badan dadka baaqi ku aad halkaas waa kuma waa agaasimaha guud iyo inta ka hooseyso waa agaasimo waaxyeedyada iyo howlwadeennada qaybaheeda kala duwan ha ahaadeen madax qaybeedyo ha ahaadeen kuwa ka sii hooseeya ilaa ay maxaa raadayay dadka mataqaana howlaha adeega ka qabta wasaaradda ha ahaadeen marka waa mataqaana xoog ama cudad aad iyo aad u tiro badan oo yacni aan sinaba lagu maarmin ay noqonayaan haddii shaygu aasaaska ama tiirkii ka lumana ama mataqaana baaba'o inta kale macna ay sameynaysa lama arko legacy dhaxalkii iyo howlihii la qabto dhan way baaba'ayaan sidaa daraadeed ay runtii aan ku abuurnay madashan agaasimayaasha guud ee wasaaradda arrimaha dastuurka runtii kulan loo aayay oo muhiim ah ayuuna noqday inta badan agaasimayaasha guud wasaaradda arrimaha dastuurka dowlad goboleedyada iyo howlwadeenadoodana ay aad iyo aad u bogaadiyeen ayna waliba ay nagu booriyeen in la joogteeyo uusan marnaba baaqan taas waaye waxaan isku taxaluujinay in bil walba ee December sanadka markuu dhamaanayo inuusan marnaba baaqan ee kulankaas la qabto alxamdulillah maanta ayay noo suurowday in aan isla bishii nooceeda kala aan ku qabano magaalada Muqdisho agaasimayaasha guud ee dowlad goboleedyadana ay ka soo qayb galaan runtii aad iyo aad ayay ka yimaad celinayna waan idinku soo dhaweynaynaa sidaan horeen u sheegteen ajandaha shirka ee ka kooban 3 ajando ayaan rajaynaynaa inaan si qoto dheer u faaqidi doono oo aan halkan ugu sii wadi doono 3 ajando waa 3 ajando aad iyo aad mug iyo macno weyn ku fadhiya shirkan uu ka duwan yahay shirarkii hore aan qabanayay gaar ahaan agaasimayaasha guud ee isugu imanayeen laba siyaabood ka badan ayuu uga duwan yahay midda koowaad ee mudaxilaadkii dowladda ayaa dhamaanaya waxaad ogtihiin in doorasho loo dareerayo laakiin waxaan rabnaa in u dareeridda doorashada aysan saameyn ku yeelan habsami socodka howlaha iyo maamulka wasaaradda inaysan ku yeelan iyo howlihii la soo qabanayay taas muhiimadda ugu ballaaran waa maxaa yeelay dhaqamadii hore waa inaan wax ka barano oo wax ka bedelnaa haddayna wax ka bedeleen maanta oo dhan shay kasta waxaan kasoo bilaabaynaa saqda muxuu ahaa qaybta ugu hooseysa ama salka ayaan kasoo bilaabaynaa wax walba inay salka kasoo bilowdaanna runtii horumar laguma talaabsan karo horumar sidiisa waxaa la yiraahdaa shay markaad soo qabato meel aad gaarsiiso meeshaas in laga sii ambaqaado oo meel kale la sii gaarsiiyo ama adiga gaarsii ama qolo kale ha gaarsiiso meel kale laakiin meel ayaad ka bilowday meel ayaad gaarsiisay teeram kale ayaa bilowday ama mudaxilaad kala bilowday meeshii hore laga soo bilaabay haddana meeshii la soo gaarsiiyay maanta oo dhan waxaa lagu jiraa circle ama mataqaanaa daa'ira oo aan dhamaanayn waxaa loo baahan yahay horumar inuu jiro horumarkan sidiisaba waa talaabo ku daris waay talaabadii hore talaabo kale kusii dar sii kordhay meel ayaad gaaraysaa laakiin talaabadii haddii aad dib usoo laabato haddana talaabo qaado dib aad usoo laabato meel aad gaadhay ma laho halkii meel ayaad maanta dhan ku warwareeganaysaa marka waxaan u baahannahay horumarkaas inaan sameyno agaasimayaasha guudna ee taa runtii ogaadaan maadaama waddanku uu federaal yahay in wasaaradda arrimaha dastuurka heer federaal keliya ay tallaabooyinkaas qaado macno iyo horumar ay sameynaysaa in lama arko waxaa loo baahan yahay tallaabo la mid ah inay qaadaan dowlad goboleedyada taas way sabab nagu kaliftay inaan mar walba ay shirarkeennii aan ku casuumno dowlad goboleedyada wasaaradahooda inaan ku casuumno si aan isla jaan qaadno saanti hal mar inaan isla qaadno maxaa yeelay saani haddii saanti kale ka horeyso horumarka laftigiisa waxaa ku jira calaamad su-aal maxaa yeelay kuwa kaa dambeeya waxay isku dayayaan inay gadaal adag ku dhigaan
adigana kaligaa hore uma sii socon kartid oo maxaa yeelay dadkii garbahaaga noqon lahaa ayaa dib u jira marka iyagoo xitaa gadaal kusoo riixin ayaad marmar ku qasbanaanaysaa adiga laftigaaga inaad gadaal usoo laabato sababtoo iyaga gadaal kaa jira marka ma rabno inaan noqono kuwii dadkii muxuu ahaa dowlad-goboleedyadii kasaan horeeya kadibna ay nagu kaliftay inaan gadaal iyaga usoo fiirino soo laabano amaba iyaga inay ay dib noo soo celiyaan ay nagu kalifay inaan dib usoo laabano taa ma rabno marka waxaan rabnaa inaan islabada soconno halkii aan gaarayno si tartiib xitaa ha ahaato inaan ku gaarno aan islabada gaarno horumar taas ayaa lagu tallaabsan karaa marka sababtaas ayuu shirarkii kale ugu duwan yahay waa midda koowaad midda labaad waxaan u baahannahay maadaama howlo aad iyo aad u fara badan lasoo qabtay sida aad ogtihiin oo intiina badanna aad shaahid ka ahaydeen muddadii 4 sano aan soo wada shaqaynaynay waxaan u baahannahay hawshaas ma sidii hore ayay noqotaa oo dib ayaan u celinaa haddana teeramka kale haddan kasoo bilaabnaa mise waxaan u baahannahay inaan hore ugu sii ambaqaadno meeshii oo wixii la qabtay aan dhahno howlahan howlo fiican la qabtay waayenaan dib ugu laaban laakiin wixii dhinnaa keliya aan diiradda saarno waxyaalo badan ayaa markaas baaqanaya guulo badan oo qofku uu ka dhiganayo dhaxal ama relevance uu ka dhiganayana wuu ka dhaxlaya guulaha maxaa marka koowaad qofkan wuxuu dareemayaa marka koowaad inuu shaqo fiican qabtay shaqadaasna la aqoonsaday shaqadaasna runtii sheegash ayuu ku leeyahay wuxuu leeyahay shaqooyinkan xilliga aan joogay iyo muddada aan joogay ayaa lasoo qabtay lasoo dhamaystiray midda koowaad waa midda labaadna wax waaye oo baaqanayo qarash badanaa ku baxay qarashkaas runtii ku baxay waxaa leeyahay alla ilaa waa u qalmaa qarashkii ku baxay intaana laga dhaxlay oo productka ka soo baxay timekii waqtigii loo huray dadkii dhididkooda u hureen iyo waxyaalahaas oo dhan ha ahaadeen dad mataqaana ajnabi ay taabagelinayay hay-adihii caalamiga ah soomaalidii kala duwaneed ee qayb ka qaadatay dadkii waqtigooda u huray xitaa diasporada ahaa iyo dalgoboleedii joogeen iyo meel kasta ay joogaan commentiyadoodii aragtiyadooda kusoo dhiibanayay ugu yaraan waxay dareemayaan relief ama muxuu dareemayaan muxuu ahaa farxad ah ugu yaraan aragtiyooyinka aad dhiibateen maanta waxay sababeen in productkan uu soo baxay ay leeyihin laakiin haddii intaas aan la arkin qolo kasta maanta dhan welwel ayay ku jirtaa waxay leeyihin maxaa la dhahaaye mar kastoo aragtiyaan oo ka ururiyaa mar walba waa ka qayb qaadanaa wax la tixgeliyay male mar walba muxuu ahaa bilaaw ayaa laga soo bilaaba taana cid ay farxad gelinayso lama arko donorska ma farxad gelinayso ma farxad gelinayso dadkii xitaa ka qayb qaadanaya xitaa ay lacag ugu bixin lacag uguma bixin laakiin maxaa ugu baxay waqtigaa ugu baxay energyaa ugu baxay fikir iyo maskax shiil iyo waxyaalahaasa ugu baxay intaasoo dhanaa ugu baxay laftigooda waxay u baahan yihiin intaas in mataqaanaa ay ka arkaan intii aan bixiyey haba yaraato maxaa kasoo naasacadaada inay ogaadaan taasina runtii way farxad gelinaysa inaan uga baahannahay marka arrimahaas hadda aan sheegayo xiriirka uu la leeyahay shirka agaasimayaasha guud maxaa waay xiriir aad iyo aad weyn uu la leeyahay oo ka mug weyn midka uu la leeyahay siyaasiyiinta ama dadka ku imaada jahooyinka siyaasiga ah sida wasiir ku-xigeen iyo wixii la halmaala agaasimayaasha guud sababta ay ugu mug weyn yihiin waxa waaye dadkii legacygaas iyo hawshii la qabtay kaydin lahaa kadibna u gudbin lahaa muxuu ahaa teeramka kale u sharaxi lahaa meelay wax joogeen iyo meesha ay u baahan tahay in wax laga bilaabo iyo sida loo bilaabi lahaa iyo qorshihii dhan qofkii gacanta ku haayay ee daadihin lahaa agaasimaha guud waa iyo tiimkiisii ka hooseeyay agaasimayaasha waaxyada ku jiraan iyo howlwadeennada iyo la taliyaasha wasaaradda haddii ay kuwaas baaba yihiin marka waxay lamid noqonayaan dad siyaasiyiin loo soo magacaabay meesha oo eber ah qoladii timaada marka maxay dhaxlayaan meel eber ah ay imaanayaan oo wax dhaxal aan jirin cid wax u sheegtahay aan jirin cid wax ku wareejisa aan jirin kadibna iyaga meesha xaarxaartaan maxay u badan tahay marka inay shay wax ku dul dhisaan miyay u badan tahay mise inay iyaga markaas bilaabaan ay mataqaanaa pioneer gareeyaan ay u badan tahay waxay u baahan tahay inay iyaga bilaabaan markaas ay mataqaanaa dhahaan inagaa sagxadii ka bilaabnay ayay u badan tahay 100% maxaa yeelay meel uu wax ku dul dhiso ma haya macluumaad uu aragti ka qaato ama uu reference ka dhigto tixraac ka dhigto ma haya marka wuxuu ku qasbanaanayaa inuu sagxada hoose ka bilaabo wuxuu qasbanaanayaa inuu dadkii abuuro institutional memory ilaa ma jiro maskaxdii meesha ma taal marka shayga maskaxda marka lagu dhahayo maskaxda waa mid shaqeynaysa ee kaydkii iyo xusuustii waxyaalahaas dhagaysa marka xusuusta ee hay-adaha iyo institutionska yaa xusuusta agaasimaha guud waa xusuusta ugu weyn iyo agaasimayaasha waaxyada iyo howlwadeennada la taliyaasha xusuusta ka mid yihiin ee wasaaradda ka mid yihiin xusuustaas oo la beelay waa macnaheed hadduu agaasimo guud iyo howlwadeennada meesha joogin
xusuus haddii ay jirinna haddii iyo kuwa abuuray noqonaysa marka juhdi noocaas iyo mataqaanaa dhibaato noocaas inaan ku bixino ma rabno waxaan u baahannahay innaga laftigeennii intaas inaan aqoonsano in la kaydiyo in la ilaaliyo inay muhiim tahay markaan anaga garaawsano ayay dadka kalena horta ogaanayaan markay dadkaas ogaadaan ayay mataqaanaa la fahmaya muhiimadda ay leedahay kadibna qolada dhaxli doonta meesha ee gaar ahaan muxuu ahaa magacaabi siyaasi ku imaan doonta wax ay ayaan oo ay bogaadiyaan ayay noqon doontaa haddii ay taa ka waayaanna meel ay magaalada ku sheegaan ay noqon doontaayo waxaan meesha ka dhaxalnay male meel baaba oo dhibaato waaye kuwii hore joog waxay ka qabteen malaha ayaa la dhihi doonaa taasina runtii dib ayay kugu soo noqonay maxaa yeele dadkii joogay waa adiga qofkii joogay waa wasiirkii kaa horeeyey waa howlwadeenadii waa agaasimayaasha guud marka waxay ku noqonaysaa insultay ku noqonaya ama maxaa la yidhahdaa kelmado iyo erey aan u qalmin marka anagoo ilaashanayna sharafteenii iyo cizigeeni iyo karaamadeenii iyo juhdi aan ku bixin iyo waqti aan kusoo bixinay taa ayay mataqaanaa taas anagoo ilaashanayna iyo fiirinayna danta qarankii iyo waajibaadkii qaran oo naloo igmaday ayaan isku xil saarnay inaan shir noocan oo kale ah isugu imaano isxog waraysano ajandaha oo saas u ballaaran oo saddexdaas qaybood aan ka wada hadalno u diyaar garowno mudaxileedka soo socdaahi u diyaar garowno haddii alla idmo aan u noqono kayd fiican inaan u noqono muddo 4 sano waxay la aan kaydina kayd fiican noqono oo dhaxal u noqon karo qolada soo socota ama mataqaanaa siyaasiyiinta la magacaabi